waxaan rabaa arrinta guud ee jidadka iyo culeysyada shacabka ay sheeganayaan oo baryahan laga hadlayay isu socodka magaalada culeyska ka jira runtii in maanta aan markaan maqalnay cabashada shacabka ka imaanaya iyo dhibka taagan isu socodka inaan culeyskii qaadnay oo ay jidadkii furan yihiin taas oo ay tahay xalay ma habeen hore go'aanan ku qaadanay in 48 hours gudaheeda culeysyada jira aan ku qaadno si shacabka qof walba meesha u socdo iyo danihiisa uusan culeys iyo dhibaato dareemin sababtaan kulleyba go'aankaas u qaadanay waxay tahay culeys iyo cabasho badan oo shacabka timid waxaa laga rabaa shacabku inay la shaqeeyaan amniga la shaqeeyaan oo haddii arkaan qolooyinkan horarka ah oo xaafadahooda ku dhumaalaysanaya ama qof ay ka shakiyaan in ay maxaanku yiraahdaa ciidamada amniga ay soo wargeliyaan si loo qabto maxaa yeelay annagu waxaan ka shaqeynaynaa difaacoodan ka shaqeynaynaa iyo ammaankoodan ka shaqeynaynaa haddii marka iyagu aysan ka shaqeyn ammaankooda naftigooda way adkaanaysaa xitaa haddaan haysano kumanaan iyo millions oo ciidamo haddaan haysano guri walba iyo geed walba iyo luuq walba iyo lama istaagnaan karo marka waxaa laga rabaa si magaaladan isugu furnaato oo qofka xun loo qabto inay gacan ka geystaan shacabku inay gacan ka geystaan marka ciidamada taliyaasha halkan fadhiya iyo siyaasiyiinta sidii aan dadku ugu gudbin lahayn shacabka inay qayb ka qaataan iyo number inay soo wacaan haddii ay arkaan qof maxaanku yiraahdaa uu tuhun ka galay inay la soo xiriiraan inaan idaacadaha ka deyno oo ka sii deyno oo aan u sameyno unit qabta informationka ay soo gudbiyaan shacabka